بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذ الكين بهالكني ومغن ميديا أنا وحالها عبد القادر محمد وأسديدي اللباتك بشهر نوفمبر سنة لبدا كونيو شنئي اللباتنك qodobada barnaamijkeena caawa aad ku maqli doontaan hadduu eebaweyna raalli ka noqdo waxa ay kala yihiin jabhadda oramada ee ola ayaa lagu eedeeyay inay dil ka geysatay gudaha gobolka Welega ee deegaanka oramada halkaasi oo lagu dilay dacwad ooga ka tirsan looyarada markaasi deegaanka Oromia ka shaqeeya in kaaraysa ilaa iyo 3 looyarna halkaasi lagu afduubtay xaalad cakiran ayaa ka taagan gudaha deegaanka oramada gaar ahaan galbeedka deegaankaasi si gaara gobolada Welega dhinaca bari dhinaca galbeed iyo sidoo kale dhinaca waqooyi ee gobolkaasi ayaana la tilmaamay inay xaalada cakiran xilligan ka jiraan dawladda deegaanka Oromia waxa ay si cad u sheegatay in la dilay mid ka mid ah looyarada gobolkaasi dhawaan dawladdu ay u dirtay sifa shaqooyin kala gedsan ay halkaas uga qabtaan sidoo kalena la afduubtay tiro intaasi ka badan sida dawladda war-saxaafadeed ka soo baxay lagu xaqiijiyay jabhadda oramada ee ola oo gobolkaasi muddooyinkii u dambeysay si aad uga dhaqdhaqaaqaysa ayaa arrintan lagu eedeeyay in kasta oo ay jiraan dadyow kale iyo sidoo kale kooxaha mucaaradka deegaankaasi oo ku eedeynaya kooxo hubaysan oo markaasi jabhadda oramada aan ka tirsanayn warbixinadii ugu dambeysay ee laga qoray xaaladda ka dhacday deegaanka oramada iyo sidoo kale awoodda kooxda ola ay ku leedahay gudaha gobolkaasi ayaa warbixinta ama barnaamijkeedin kula wadaagi doona sidoo kale inta hawada barnaamij ku jira waxaad ku maqli doontaan ama ku daawan doontaan taliyaha ciidamada militariga qaybta gobolka Axmaarada ku sugan ayaa waxa uu xaqiijiyay inay xasuuq xooggan u geysteen jabhadda Axmaarada ee ku sugan gobolka Goojam halkaas oo taliyuhu uu tilmaamay inay ku dileen in ka badan 200 oo askari oo ka tirsan jabhadda Faano dhawaan ay ahayd markii dawladda deegaanka Axmaarada iyo sidoo kale ciidamada militariga ay tilmaameen inay doonayaan inay soo afjaraan colaadda gobolka Axmaarada ka taagan labadii sano ee la soo dhaafay Abiy Ahmed iyo dawladdiisuna ay go'aan ku gaartay in gabi ahaanba jabhadda Faano laga takhaluso hadda ciidamadu waxa ay guul ka sheeganayaan dagaal gobolka Goojam ka dhacay waxayna tilmaameen inay qabteen in ka badan 40 askari oo jabhadda Faano ka tirsan sidoo kalena ay dileen 200 iyo wax ka badan oo kamid ah ciidamada jabhadda Faano ee gobolkaasi dhaqdhaqaaqyada xoogan ka wada sidoo kale barnaamijka waxaad saaxiibayaal ku maqli doontaan magaalada caasimadda u ah deegaanka Tigray ee Maqale waxa lagu soo waramayaa inuu halkaasi qarax xoogan ka dhacay iyadoo laamaha ammaanka ee gobolka Tigray ay ka warbixiyeen xaaladda iyo sidoo kale cidda ka dambeysay falkan iyo qaraxan la tilmaamay inuu ka dhacay gudaha magaalada Maqale ee caasimadda deegaanka Tigray wararkaanu helena waxay xaqiijinayaan inaysan wax khasaare ah oo markaasi nafeed aysan ka dhalanin marka laga yimaado burbur xoogan oo ka dhacay goobta uu qaraxu ka dhacay dawladda ayaa la tilmaamay inay baaritaano xoogan ku hayso shakhsiyaadkii ka dambeeyay inkasta oo lagu eedeeyay jabhadaha uu taageero ama ay taageerto dawladda ee ka hoos shaqeeya Getachew Reda oo hadda dawladda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed la shaqeeya qodobadaas iyo kuwa kale ayaan saaxiibayaal barnaamijkeedin kula wadaagi doonaa soo dhawaada oo nagu soo dir barteena Magan Media YouTube kana subscribe ku samee sidoo kalena soo follow garee bartaan Facebook ku leenahay isla Magan Media halkaas oo iyadana akhbaaraadka aanu si maalinlaha idin kula wadaagno haddii aad hore noola joogteen muuqaalkan la garay sidoo kalena la sii wadaag saaxiibada oo si share gare si uu meel dheer u gaaro aynu ku bilownay xaalad cakiran ayaa waxa ay ka taagan tahay gudaha deegaanka Oromia gaar ahaan gobolada lagu magacaabo Welega gobolka Welega ayaa waxa uu yahay gobol baaxad weyn isagoo oo dhowr jiho markaas dawladdu ay u qaybisay hadda xaalad cakiran waxa ay ka taagan tahay dhinaca bari ee gobolka Welega halkaas oo dawladdu ay sheegtay in lagu afduubtay looyaro ka tirsan kuwa deegaanka Oromia sidoo kalena la dilay mid ka mid ah looyarada gobolkaasi jabhadda oramada ee ola ayaana eedda dusha laga saaray inkastoo ilaa hadda aysan iyadu dhankooda wax wara ka soo saarin dhinaca kale waxaa jira warbixino kala gedisan oo soo baxay oo tilmaamaya in kooxo kale oo hubaysan oo gobolkaasi ka dhaqdhaqaaqa ay dilkan ka dambeeyeen dacwad ooga ka tirsan gobolka Oromia iyo sidoo kale 3 kale oo la socday oo looyaro ah ayaa la tilmaamay inay weerarkaasi qaarna lagu afduubtay qaarna lagu dilay warbaahinta gudaha dalka Itoobiya ayaa maanta waxay si isku mid u qorayaan arintan iyagoo tilmaamay inay kooxo hubaysan markaasi dil iyo afduub ka geysteen tuulada lagu magacaabo Harakabale oo ka tirsan degmada Jimma Arjo oo ka amada markaasi gobolka bariga Welega ku yaala sida ay sheegtay ururka dacwad oogayaasha gobolka Oromia oo warbaahinta dalka Itoobiya la hadlay falkan ayaa la tilmaamay inuu tuuladaasi ama degmada Jimma ee gobolkaasi ka tirsan uu ka dhacay
waxaana arintan xaqiijiyay ninka lagu magacaabo Taadase Nuguse oo ah madaxweynaha ururka dacwad oogayaasha deegaanka Oromada wuxuuna sharaxay in 5 dacwad ooge oo markaas isugu jira ay ka safreen magaalada Jimma ama magaalada markaas Jimma lagu magacaabo iyo ku sii jeeday Nekemte oo hawla dawladdu u dirtay markaas la doonayay inay baaritaan kala gadtan ku sameeyaan Taadase oo faahfaahinaya waxa dhacay ayaa waxa uu sheegay inay la kulmeen dadkaasi ka tirsan dacwad oogayaasha deegaanka Oromiya kooxaha hubaysan oo ku jiray markaas kaynta kuwaas oo halkaas ku toogtay oo dilay dacwad ooge Nagase Kabade isla markaasina afduubtay 3 kale oo lagu kala magacaabo Alamayo Masele Adisu Lagase iyo sidoo kale Yiglam Mituku meesha ay ku sugan yihiin 3daasi kale ayaa la tilmaamay inaan cid og xataa macal dawladda iyo laamaha ammaanku aysan jirin Taadase waxa uu warbaahinta u sheegay in meydka Nagase Kabade loo qaaday magaalada lagu magacaabo Sululta si halkaas loogu aaso halka xaaladda 3dii dacwad ooge ee kale la afduubtay ilaa iyo hadda aan wax war laga haynin xafiiska dacwad oogista gobolka Oromiya deegaanka Oromada ayaa si gooni ah u xaqiijiyay geerida Kabade qoraal ay baraha bulshada soo dhigeen iyagoo muujinaya murugada xooggan ee arintaasi gobolka ka dhalisay ururku waxa uu cambaareynaya ayay dhaheen falkaas waxauna dalbanaya in si degdeg ah loo sii daayo shakhsiyaadka sharci darrada markaas lagu afduubtay ayuu yiri Taadase oo ah madaxweynaha dacwad oogayaasha deegaanka Oromada waxa uu intaas ku daray in kooxaha wax afduubtay ilaa iyo hadda aan si cad loo ogeyn balse eedu hadda ay kor socoto jabhadda Oromada ee Ola oo muddooyinkii u dambeysay gobolkaasi intiisa badan gacanta ku haysay dhaqdhaqaaq xooggan oo ay ciidamada dawladda kaga soo horjeedaan halkaas ka waday dhinaca kale waxa la eedan sii xoojinaya waxa la sheegay in dacwad oogayaashan ama looyaradan gobolka Oromiya ama deegaanka Oromiya ka tirsanaa ee dawladdu halkaas ay u dirtay inay doonayeen inay baaritaano ka sameeyaan gudaha degmooyinka gobolka Walega halkaas oo jabhaddu la tilmaamay inay xasuuqyo u geysatay dad shacab ah oo aan waxba galabsanin jabhadda Oromada Ola ayaana arintaas iyadoo ka feejigan la sheegay inay markaas weerarkan ku qaaday 40 dacwad ooge ee dawladdu halkaas ugu dirtay ninkii watay ama gudoomiyaha waana qudhayay gooyeen sidoo kale 3 kale oo markaas dacwad oogayaasha gobolka ama deegaanka Oromada ka tirsanna waa ay afduubteen iyagoo la sheegayo ilaa iyo hadda inaysan jirin goob markaas ay ku sugan yihiin oo la ogyahay isla wararka dalka Itoobiya aynu ku sii soconaa saaxiibayaal deegaanka Axmaarada waxa muddooyinkii u dambeysay ka socday weeraro xooggan oo u dhaxeeya ciidamada dawladda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo sidoo kale jabhadda Faano oo gobolkaas ka dhaqdhaqaaqda si aadana markaan ula dagaalanta ciidamada dawladda Itoobiya hadda dawladdu waxa la sheegay inay go'aan ku gaartay in bilooyinka soo socda jabhadda Faano laga cirib tiro gobolada Gojam Gondar Wallo iyo sidoo kale gobolka Shawa oo inta badan ba iyagu ay ku sugan yihiin weerar kala gedsan ay ku qaadaan saldhigyada ciidamada militariga ay leeyihiin maanta warfidiyaanka taageera ciidamada dawladda ama si gaar ah halka ay baraha bulshada ka isticmaalaan wasaaradda difaaca ee dalka Itoobiya waxa lagu daabacay warbixin sheegaysa in dagaal xooggan oo gobolkaas maanta ka dhacay ay ciidamada dawladdu xasuuq u geysteen xubno ka tirsan jabhadda Faano in ka badan 200 oo ka tirsan kooxdaasi ay ciidamada dawladdu sheegeen inay nafta dhaafiyeen sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen 30 halka 24 kalena dabcan ay tilmaameen in la dhaawacay 10 qof oo ka tirsan ayaa la sheegay inay iyagu markaasi dawladda dhinaceeda isu soo dhiibeen warbixinta ayaa waxa lagu bilaabay inta u dhaxaysa deegaanka lagu magacaabo Adar 3 ilaa Adar 17 ee ka tirsan gobolka Gojam waqooyigiisa iyo sidoo kale galbeedka gobolkaasi oo ay degto qoomiyadda lagu magacaabo Awi ayaa la tilmaamay inuu dagaal xooggan ku dhexmaray ciidamada dawladda iyo sidoo kale kooxaha hubaysan ama kooxda jabhadda Faano loo yaqaano oo goboladaasi dagaalo culus markaas ka sheegta ciidanka dawladda Itoobiya waxa ay cadowga gaarsiiyeen ayaa la yiri qasaare naf iyo maalba leh iyaga oo fuliyay weerar isku dhafan oo markaas hawlgal dhinaca cirka iyo sidoo kale dhinaca lugta markaas dawladdu ay sameysay waxa lagu dilay hawlgalkan ayay sheegeen ciidamadu in 209 xubnood oo ka tirsan ciidamada jabhadda Faano halka la tilmaamay in gacanta la dhaawacay 24 xubnood oo markaas jabhadda ka tirsan sidoo kalena gacanta lagu dhigay 30 ka tirsan jabhadda Faano
dowladdu waxay sidoo kale sheegatay inay gacanta ku dhugtay hubka noocyadiisa kala gedsan oo markaas jabhadda laga qabsaday qoriga loo yaqaano BKM-ka ayay dowladdu sheegtay inay ka qabsadeen halka in ka badan 48 qoriga AK47 loo yaqaano ay dowladdu gacanta ku dhigtay qoryo kale oo gaaraya ilaa 62 qori ayay dowladdu markaas sheegatay inay kala wareegtay kooxdan iyo markaas rasaas aad u tiro badan bamka gacanta laga tuuro telefoonno iyo bastoolado markaas ay ciidamadani isticmaalayeen waxay sidoo kale dowladdu sheegtay in la qabtay 25 xubnood oo kale oo ka tirsan kooxda jabhadda faano ee markaas ka dhaqdhaqaaqayay meelo u dhow deegaamada ama magaalada caasimadda oo gobolkaasi ama deegaanka Axmaarada ee Baardar gaar ahaan aaga lagu magacaabo Kuzlavod waxaana laga helay baa la yiri mid ka mid ah qoryaha waaweyn oo ay jabhadaasi markaasi wadatay warbixintan waxaa sii daayay ama xogtan aan ka soo xiganaynaa wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Itoobiya oo markaasi sheegtay in weerar khasaare badan geystay ay ciidamada dowladdu markaasi ku ekeeyeen jabhadda faano oo gobolkaasi muddooyinkii u dambeysayba ka dhaqdhaqaaqaysay sida warbixinta lagu daabacay markana saaxiibayaal haddii aynu gaarno dhinaca iyo deegaanka Tigrayga warbixin laga qoray xaaladda gobolkaasi ayaa waxa ay sheegaysaa inuu qarax xooggan ka dhacay magaalada caasimadda oo deegaanka Tigrayga ee Maqale halkaas oo la sheegay in qaraxaasi burbur dhuleed iyo guryo inuu u geystay mooyeen wax khasaara oo nafeed iyo sidoo kale mid dhaawacaba uusan ka dhicin laamaha ammaanka ee deegaanka Tigrayga ayaa waxa ay tilmaameen inuu falkaasi ahaa mid ula kaca oo ay shakhsiyaad amniga gobolkaasi ka soo horjeeda ay geysteen mas'uuliyiinta magaalada Maqale ee gobolka ama deegaanka Tigrayga ayaa sheegay in qarax ka dhacay habeennimadii xalay ahayd xaafadda lagu magacaabo Aadi Xaqi oo kaas oo aan sababin balil wax khasaare naf ah iyo sidoo kale mid hantiyeed iyagoo ku tilmaamay dhacdadaasi bal argagixiso oo si ula kaca loo abaabulay ragaadin fisaha madaxa xafiiska nabadgelyada iyo amniga magaalada Maqale ayaa warbaahinta deegaanka waxa uu sheegay in qaraxu uu dhacay abaare 12 fiidnimo ee habeennimadii xalay ahayd soo dhaafnay waxa uu sheegay in la soo markaas baaritaano lagu hayo markaasi dadkii ka dambeeyay weerarkaasi wax khasaare ah oo dhaawac iyo sidoo kale mid nafa ayuu tilmaamay inuusan qaraxaas ka dhicin balse deegaanadii ama meesha uu ka dhacay xaafado iyo guryaalkaas ku yaala burbur markaasi ay ka soo gaadheen madaxa amniga ee deegaanka Tigrayga waxa uu sidoo kale sheegay in dhacdadu ahayd mid si kasa loo qorsheeyay isla markaasina hay'adaha amniga ee gobolka iyo magaaladu ay iska kaashanayaan sidii loo baadigoobi lahaa loona qaban lahaa kuwii ka dambeeyay marka baaritaanku uu soo dhamaadana waxa la shaacin doonaa ayuu yiri cidda sida rasmiga uga dambeysay waxa uu intaas ku daray in aan wax dhacdo amni oo kala ah laga diiwaangelin magaalada Maqale ilaa maalintaasi waxa uuna ugu baaqay shacabka inay isdejiyaan oo ay feejignaan badan muujiyaan maadaama ciidamadu ay baaritaano kala gedsan ku wadaan xaafadaha magaalada caasimadda oo deegaankaasi Tigrayga ee Maqale sida warbixinta lagu sheegay ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa deegaanka Tigrayga ee baaritaanada sameeyay ayaa waxa ay eedeyntan iyo qaraxan dusha ka saareen jabhadda Getachew Reda iyo dowladda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ay taageeraan ee markaasi ka dhaqdhaqaaqda deegaano ku yaala xadka u dhaxeeya gobolada Canfarta kan Tigrayga iyo sidoo kale kan Axmaarada waxaana la sheegay in qaraxan ay uga dan lahaayeen inay cabsi ku abuuraan shacabka magaalada caasimadda ee Maqale ku sugan sidoo kalena amniga magaalada ay khalkhal galiyaan sida ay dowladdu markaasi ku andacoonayso halka ilaa iyo hadda aan wali la xaqiijinin cidda sida rasmiga markaasi uga dambeysay xaaladan codkalan iyo qaraxan aan la ogeyn halka uu markaasi salka ku hayo gobolka Tigrayga waxa isku haya dowladda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo sidoo kale tan markaasi maamulka gobolkaas iyo TPLF oo dhinaca waxaana TPLF dhawaan ku dhawaaqday inaan wax doorasho oo Abiy Ahmed uu wato aan gobolkaas laga qaban doonin sidoo kalena gabi ahaanba uu burburay heshiiskii Pretoria ka dhacay ee markaas TPLF iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed dowladdiisu ay markaasi ku heshiiyeen xiisad cakran ayaana gobolkaas ka taagan madaxda iyo sidoo kale dowladda ku meel gaarka ee gobolka Tigrayga xilligan ka arrimisa ayaana la sheegay inay xiisadda labada dhinac inay isu soo dhaweyso ay kari laadahay waxaana warar hordhaca oo soo baxay ay sheegayaan in generaalka madaxweynaha ku meel gaarka ka ah gobolkaasi lagu magacaabo Taadase Warada uu hadda ku dareynayo in uu ka soo horjeesto dowladda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed maadaama ay ka jarteen budgetkii ama lacagihii dowladdu ay ku taageeri jirtay gobolkaasi shaqaalaha iyo macallimiinta iyo askartuna hadda
muddo dhowr biloodaba ay yihiin mushaar la'aan xaaladaasoo ta gobolka aad u sii xumaynaysa maalmihii lasoo dhaafay marka la fiiriyo hadda xaal sida uu yahayna waxaa muuqata in gobolkaas in lagu dagaalamo ay culus tahay si guudba saaxiibayaal xaaladda dalka Itoobiya waa iska qasan tahay oramada deegaankooda faraha inuu ka baxo ayaa laga baqayaa gaar ahaan gobolada dhinaca galbeed xiga halkaasoo jabhadda oramada ee ola ay ku xoogan tahay faano waxa ay sheeganaysaa guulo ciidamaduna waxa ay tilmaameen inay bilaabeen inay howlgallo lagu soo adjarayo colaadda gobolkaas ka taagan in ka badan 2 sano ay markaasi bilaabeen TPLF iyo dawladuna waa iska soo horjeedaan midba midka kale ayuuna ku dacweynaya inuu xabadda inuu rido markaas uu ku qasbayo xaaladuhu marka Abiy Ahmed dawladdiisu waxay u muuqataa inay laba dhinac u dhici doonto inay jabhaduhu guuleystaan iyo inuu isagu uu guuleysto toddobaadada ama bilaha soo socda sida uu ballan qaadana inta aan la gaarin doorashada 2026 bisha 6 ka dhacaysa Itoobiya sida ay guddiga doorashooyinku sheegeen Abiy Ahmed waxa uu tilmaamay inuu Itoobiya ka dhigi doono mid nabadgelyo kooxaana wuxuu la heshiiyo iyo wax uu soo afjaro uu ka dhigo la arki doonase intaas ayaan kusoo gabagabeynaya saaxiibayaal waad ku mahadsantihiin la socodka barnaamijyadeena nagu soo biro barteena Magad Media subscribe ku samee sidoo kale soo follow garee barta aan ku leenahay Facebook ee isla Magad Media halkaasoo warbixinada aan kula wadaagno haddii aad hore noola sii joogtana muuqaalkan la garay lana sii wadaag saaxiibada si uu meel dheer u gaaro inta kulmi doono warbixinteena xigta waana Cabdulqaadir Maxamed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo